daawada kusoo dhawo barnaamijkeenii labaad oo aan kaga hadli doono shakhsiyaad soo islaamay. barnaamijkankii ka horreeyay waxaa kusoo qaadanaya Amina al Silmi oo ka mid ahayd suxufiyad Maraykan ah oo islaamtay 1977. maanta waxaan kusoo qaadan doonaa Cali Arkeeni. My name is Ali. People call me Baba Ali because my pen name, but my real name is Ali. waxa uu ku dhashay Oktoobar 11, 1974 waddanka Maraykanka. waxaa si wanaagsan loogu yaqaanaa Baba Ali. waa majaajileyste Maraykan ah u dhashay Iiraan, horumaryo ciyaaraha giimta ah, ganacsade iyo jilaa. inkastoo uu ka dhashay qoys Farisi ah, Arkeeni waxa uu kusoo barbaaray guri cilmaani ah oo ku yaala magaalada Los Angeles ee California. laga soo bilaabo da'da 18 jirka waxa uu bartay diimo badan. isagoo 20 jir ah, Arkeeni waxa uu qaatay diinta Islaamka kadib markii uu joogtay tegitaanka markas Islaamiya. waxa uu ka tirsanaa sidaan hore usoo sheegnay qoys hodan ah oo aan aqbalin markii uu qaatay diinta Islaamka. sida awgeed waxa ay u diideen dhaxalkii. waxa uu ahaa shaqaale ka tirsan shirkadda IT-ga ee ku taala California. Arkeeni oo weheliyo Axmed Mahdi ayaa aasaasay Ummah Film oo ah shirkad filimada Islaamka ku saabsan soo saarta, iskuna dayday in ay sii dayso madadaalo xalaal ah bulshada muslimiinta ah iyo kuwa aan muslimiinta ahaynba. sanadkii 2006 Arkeeni wuxuu caan ka noqday dhanka online-ka. shirkaddu waxay soo saartay dhowr filim oo taxane ah oo waxa ugu waaweyn oo laga xusi kara uu yahay taxanaha Xusuusta iyo Weydii Baba Cali. daawada shakhsiga labaad ee aan kusoo qaadnay barnaamijka noqon doona shakhsiga saddexaad ee guud ahaan dadkii aan kasoo hadalnay waxaa noqon doonaa Mutawazim Bayle. My name is Muta Bill, formerly known as Napoleon. Most people might know me as a rap artist or a former rap artist. Mutawazim waxa uu ku dhashay Oktoobar 7, 1977 magaalada New York. waxaa loo yaqaanaa magaca Napoleon. waxa uu ahaa xubin ka tirsan kooxdii aabka ee Tupac. markii uu qaatay diinta Islaamka ilaa hadda waxa uu yahay dhiirigeliye. Napoleon waxa uu kusoo koray New York, New Jersey. waxa uu soo korisay ayeeyadii oo Kristan ah kadib markii waalidiintiis oo muslim ah lagu dilay gurigooda hortooda arxan darra. sanadkii 2001 daaci muslim ah ayaa la dhacay awoodaha Napoleon ee hogaami ahaan, waxaana uu ku dhiirigeliyay inuu qaato diinta Islaamka. Alhamdulillah, about 18 years ago, myself also converted to the religion of Islam, similar to you. kana tago isticmaalkiisii hore ee mukhaadaraadka. Napoleon waxa uu arkay in hip hop ama ciyaaraha raabka iyo Islaamku kuwa aan isqaban karin, sababtoo ah asal ahaan xitaa haddii ay fariinta heestu ay tahay mid wanaagsan, ma ahin mid la jaan qaadaysa ama uu aqbaliyo dhaqanka Islaamka ee wanaagsan. sidaa awgeed Napoleon waxa uu iska dhaafay dhammaan waxyaabihii uu samayn jiray intuuna islaamin ka hor. Napoleon ilaa imika waxa uu yahay dadka motivational speakerska loo yaqaano ama dadka dhiirigeliya. daawada barnaamijkeeni maanta halkaas ayuu ku joogayaa. insha Allah maalmaha soo socda waxaan kusoo qaadan doonaa kale dad caan ah oo qaatay diinta Islaamka.